odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda gobolka Salal oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Saylac ayaa si adag waxay uga hadleen shaqaqadii ka dhacday degmada Xariirad iyagoona sidoo kale baaq u diray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha taas oo ku tilmaameen in sagaalkii oday ee ka talin lahayd arrinkaasi uu xabsiga dhigay sidoo kale odayaashani waxa ay baaq u direen xukuumadda Soomaaliland oo ay sheegeen in si degdeg ah wax looga qabto odayaashaasi ku xidhan jeelka magaalada Boorama qaarkood waxa hadaladooda kamid ahaa waxaan ka hadlaynaa shirkan jiraayid uu maanta ku saabsan yahay duqeyda ku xidhan Boorama ee laga xidhay Xariirad duqeydaas waa duqeydii odayaasha hoggaanka u ah waxaan jeedaa deegaanka hoggaanka u ah waa odayaashii xalili lahaa waxa maanta jira waa odayaashii loo daba joogsanayay nabadgelyada deegaanka marka dawladdu xidho waayo cidda ka talinaysa in odayadu nabad keena waaba xidhan yihiin dawladda iyo daba joogsanaysa berigii hore siyaad baruun baan ka maqli jirnay odayaal baa xidhanoo ilaahay nabada ay keenaan lama soo daynayo wax dembiyay leeyihiin male waa nimankii maanta waxaana u xidhan yihiin la doonayay inay dejiyaan in nabad ka keenaan dhulka duurow haddaad haysato dalkan ay kugu xidhnaadaan sidaas iyo si ka daran buu sii noqon deegaanku السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaan ka hadlaynay waxa weeye waxa indergaadka igu horeeyay uu ka hadlay baan ka hadlaynaa waa arinta odayaashu waxay kordhisay kuwii hore ee lagu laayay iyagoo waxba garabsan jiifka lagu laayay beeris kolka waxa leeyahay dawladdu nabadgelyadii ay ku faaraysay miyay ka baxday haddii meel goob dagaal bay ka dhigaysaa dalka maxaa dhacay odayaashu iyo kuwii xalinayay ahayd sidii saaxiibkeeba hore ugu sheegay kuwii loo daba joogsanayay waxaabaa la iiga baahan yahay beerheblaayaha haddaasii loolaya ahayd iminka kolka iyaga lagu horeeyo inanka yari muxuu keeni talaakay gaari sow goob dagaal meeshii noqon mayso sow madag taasay dhib iyo dhibaata masii kordhayso kolka waxaan leenahay anagu dawladda hadday sidaa garatay dadweynihii waqaashii iyo beerihii kaleete maxay ka damceen inay ka hadlaan maxaa u diiday maxay u dhagaysanayaan haddii ciisu qaldan yahay ma u yimaadinayaan ciiso adaa khaldane dawladda kaa toosane waxan baad ku qaldantahay ma ilaahin Maxamed Cabdillaahi Shinila News magaalada Saylac.